shirkan oo ka dhacay xarunta wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Somaliland waxa heshiis laba geesood ku dhex maray wasaaradda biyaha Somaliland iyo wasaaradda biyaha beeraha xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Jamhuuriyadda Djibouti shirkan waxa goobjoog ka ahaa wasiirka horumarinta biyaha Somaliland Maxamed Muuse Diiriye iyo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland Maxamed Xasan Dirir heshiiskan ayaa dhinacyo badan taabanaya waxa aana wakiil ugu ahaa labada dawladood wasiirka biyaha Somaliland Maxamed Muuse Diiriye iyo wasiirka biyaha beeraha xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Djibouti Maxamed Axmed Cawaale waxaana heshiiskaasi dhinaca wasaaradda biyaha Somaliland u saxay wasiirka horumarinta biyaha Somaliland Maxamed Muuse Diiriye halka dhinaca Djibouti uu saxay wasiirka biyaha xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Djibouti waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland mudane Maxamed Xasan Dirir bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa wasiirka wasaaradda beeraha xanaanada xoolaha iyo biyaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Maxamed Axmed Cawaale oo wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Muuse Diiriye ku qaabilay xarunta wasaaradda biyaha Jamhuuriyadda Somaliland halkan waxay ku kala saxdeen heshiis dhinacyo badan taabanaya oo labada dawladood ay ku matalayaan labada wasiir waxaan ku soo dhaweynayaa ugu horeyn wasiirka wasaaradda biyaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Maxamed Muuse Diiriye wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland mudane Maxamed Muuse Diiriye ayaa dhinaciisa halkaasi ka hadlay waxaan u xusay in heshiiskan laba geesoodka ay u dhaxeeyo Somaliland iyo Djibouti halkan waxaan ku soo dhaweynayaa walaalkay Maxamed Axmed Cawaale wasiirka beeraha horumarinta biyaha xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee Jamhuuriyadda Djibouti oo ku kala saxanayno ayaamahan bedelkayna la joogay intii nala soo eegay goobo badan haddana aanu doonaynaa inaanu ka wada hawlgalno soo eegno ayaxa iyo meelaha uu dalka kaga jiro inkastuu sii gabaabsi yahay haddana doonaynaa inaanu wax badan wada qabsanno waxyaabaha labada dowladood inay wada qabsadaan ay doonayaan waxaa ka mid ah horumarinta biyaha muxuu ahaa deegaanka abaaraha iyo wixii la halmaalaha ayaxa imka aynu hadal hayno iyo dhinacyo badan oo kale wixii aanu iska sargaraynay isla soo garannay ama aan isla ogeyn maanta ayaynu heshiiskii mabda'iga ahaa aynu kala saxaynaa haddii la yidhaahdo waan kugu soo dhaweynayaa aad iyo aad nabad u mahadsan tahay wasiirka biyaha xanaanada xoolaha beeraha iyo kalluumaysiga Djibouti mudane Maxamed Axmed Cawaale ayaa dhinaciisa soo dhaweeyay heshiiskan iskaashi ee laba geesoodka ah ee u dhaxeeya Somaliland iyo Djibouti anigiyo digayga Maxamed Muuse Diiriye oo wasiirka biyaha ee Somaliland iyo Maxamed Cawaale wasiirka biyaha iyo beeraha iyo kalluunka iyo xoolaha waxaan ku kala waxaan ku heshiinay inaan kala seexanno heshiis laba geesooda oo waxyaalo badan taabsanaya khusuusan biyaha lafdhabarka u ah heshiis baan kala seexananaa heshiiskaasi oo noo banaynaya fursadna noo furaya inaan mashruucyadii aan ka wada sheekaysanay aan bilaabi karno si degdeg ah waad mahadsantihiin